caawa halkan waxaan kula kulanay nin u dhashay dalka Holland oo ku hadlay luqadda afka Soomaaliga. Bob waan ku salaamay. Waa ka qaad. Sidee ku baratay luqadda afka Soomaaliga? Allah ba ku bartay. Marka iskuul ma u dhashay luqadda? Iskuul ma u gelin. bal nooga waran wareyntii sidee ku baratay? In asxaabta oo jooga in ayay u dhawiyay in afka Soomaaliga barto. sidee loo aragtaa luqadda afka Soomaaliga? aad runtii aad bay cajiibisay luqadan in waan isku taxluujiyay barto. soo kuguma adkayn markaad baranaysay luqadda? way u adkayd. sidee loo aragtaa maamaha Soomaaliyeed? in maamayaasha Soomaaliyeedna aad u wanaagsan yihiin mutibadna waa xambaarsan yihiin. maamaha soo sheegtay wax ma nooga taaban kartaa? in ragna waa shaac dumarna waa sheeko in ufacayo jacayl midna ma qarsoomo runi ilkaba wal cadeeya in saddex nin lama saartayo ninka qurux badan ninka badan iyo ninka dheereeya iyo yeela wa ilaawa la yeelasna ma ilaawo heesaa fanaaniinta oo aan qaataba ku hay in maxaad nin ilka weyn inuu qosla la mooda in nin midihasta in hilibku markaa dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta iyo in maxaad malga jecel hadaad ka tagto malga naciba tagta fanaaniinta heesaa Soomaaliyeed wax ma ka taqaanaa? yaa ka mid ah xasan aad samatar bisaalatahay fanaanka ugu khatarsan oo qaada in Broadway iyo Ruqiyo iyo in Aways Khamis oo qaada hees misaarka iyo Ahmed Ali Gaal oo qaada Saadiyo Jacaylkaaga iyo in Maxamuud Ciise Tumujile oo qaada Alligeeyo. maxaad ku rajaynayaa mustaqbalka inaad samayso? waxaan ku rajaynayaa inaan sameeyo buug isku turjuma afka Hoodeeska iyo Soomaaliga si aan uga caawiyo dadka jecel inay afka Hoodeeska bartaan. dadweynaha Soomaaliyeed ku dhageysanaya caawa maxaad ugu bishaaraynaysaa ama rajaynaysaa? dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa in khilaafka dhexdooda oo dhamaada iyo bashbasho barwaaqo. marka qofkii doonay inuu soo xiriiro emailkaaga uu qoran yahay meesha. okay waan ku salaamay waad mahadsantahay aad baan ugu mahadnaqaynaa yani barashada luqadda afka Soomaaliga sidaad ugu hadlayso aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku rajaynayaa ku soo dhawaad ku leenahay. waad mahadsantahay aad iyo aad.